kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aragtida dadweynaha oo maanta idinka imanaya xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo waxaana idinla socodsiin doona haddii Allah awood leh ogolaado anigoo ah Cabdirasaaq Sugulle waxaanuna wax ka weydiin doonaa shacabka ku dhaqan magaalada Ceerigaabo inta aanu la gaarno makrofonka Saab TV shacabka magaalada Ceerigaabo ku dhaqan waxaan wax ka weydiin doonaa aragtidooda ku wajahan sida ay u arkaan komishanka cusub ee lagu kordhiyay komishanka doorashooyinka ee u dhaxeeya saddexda xisbi qaran ra'yigayga ku aadan labada xubnood ee uu madaxweynuhu ku soo daray komishanka waxaad moodaa inaan wax macna aan samaynayn waxaad moodaa inay sii xoojinayso khilaafkii awalba horu jiray baad moodaa oo imika caga yeeshay oo sii xoogaystay ayaad moodaa ma aha laba xubnood oo khilaafaadka ka dhex saari kara xisbiyada laakiin waxaad moodaa inay yihiin laba xubnood oo aan sidii wanaagii la rabay aan u dhicin sidaa darteed labaduba waxay ka tirsanaayeen xukuumadda sidaa darteed madaxweynaha waxaan u soo jeedin lahaa waxyaabo badan oo khilaafaad keenaya in laga fiirsado oo in badan laga tashado sidaa darteed waa sharci darro dubnaha looga fiirsado caaladku inuu ka soo horjeesto waa sax aad iyo aad bay u fiicantay inay ka soo horjeestaan inay ka tashadaan xubnahoodana ay la laabtaan الرحمن الرحيم hadaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada madaxda Ceerigaabo waxaanu ka arag dhiibanaynaa toddobaadkii dhawato xubnihii la soo magacaabay toddobada xubnood ahaa siban labada xubnood ee dhaliyay muranka faraha badan labada xubnood ee ay soo magacawday xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhaliyay muranka badan waxaanu aragnaa laba xubnood aan meesha qaban sababtoo ah dadku hadii ay waxa weeyaan ay la rabo in la galo doorasho xor iyo xalaal ah sida ay keeneen xisbiyada mucaaradka waxa fiican in la keen laba xubnood oo ka madax banaan xukuumadda oo aan raadiyo asaltoona ku lahayn sababtoo ah hadii la rabo in dadku gargalaan gartuna ay naqanto si sax ah loogu kala baxo waxa la keenaa xubno ka madax banaan xukuumadda oo waxa weeyaan garta si fiican u gala marka waxaan aragnaa xukuumaddan haduu yahay riya raac iyo haday inanta tahayba waa dad xukuumadda in badan ku soo jiray qaybtood komishanka hore ka mid ahayd qayb dambe xukuumadii kala horreeyay soo olorin jirtay aan lagu kalsoonaan karin waxa weeyaan soo celintooda dambe marka waxa leenahay xukuumadda madaxweynaha uu garwadanka Muuse Bixi hadaad rabtid inay dhacdo doorasho waxa weeyaan lagu wada kalsoon yahay oo xor iyo xalaali waxaad keentaa laba xubnood oo waxa weeyaan ka madax banaan xukuumaddaada ilaa xisbi weyn baa tahay oo in badan soo jiray laba xubnood labadana aad keentay dhaama kama aad waayina hadaa doorasho diyaar u tahay laba xubnood oo waxa weeyaan xukuumadda ka madax banaan keen waxa ila muuqataa sideeda banaan basan hore ugu dhawaajiyay dadku markii gar la gelayo garta waxa la keenaa dad dhexdhexaad ah xisbiyada mucaaradka waxay keenaan laba xubnood oo aad iyo aad u hufan oo xisbiyadooda gaar ahaan ka sii madax banaan oo dad aqoon leh iyo oo aan horina siyaasadda u soo dhaxgelin marka haday yiraahdeen war labada xubnood soo magacaado kuma qanacsan waa ku taageersanay waayo waxay rabaan sida ay keenan dad madax banaan oo waxa weeyaan aqoon leh oo waxan professional leh oo ka soo bixi kara inay dhigooda ku xisbiga kulmiye ee muxaafadka garwadanka inuu keeno xaq buu tahay maadaama wixii ay ka doonayeen ay ku arki waayeen inay qaadacaan oo ka noqdaan qolol ka hadli weydo midna xubintiisa kala noqdo anigu waxaan arkaa aragti sax ah waan ku soo dhaweynaya xukuumaddana waxaan ugu baaqayaa mar labaad madaxweynaha garwadanka yahay madaxweynaha dalkaada ka madaxweynaha adaana maamula wixii wanaagsanaada adaa yeelanaya mustaqbalka wixii xumaadana adaa yeelanaya waxa leeyahay komishin doorasho u qabsanto xubno lagu kalsoon yahay oo xukuumadda ka madaxnaan keen mar labaad iyo mar saddexaad buu ku baaqina sidoo kan ka dhibto labada xubnood ee komishanka ee labada xisbi mucaarad ay dib u noqdeen waxaan u arkaa inay tahay arrin labada xisbi ay ku ciriyaaminayaan inay doorashadii dib u dhacdo oo aan labada xisbi aan diyaar u ahayn inay doorasho ay galaan oo ay ka maraateynayaan maadaama aan waxba islahayn baan u arkaa anigu inay muxuu ahaayeen doorashada ay ciriyaaminayaan runtii waxaan ugu baaqi lahaa labada xisbi mucaarad inay shacabka dibindaayada ka daayaan iyo muxuu ahaa dib u dhaca doorashadana aan ka shaqayn awalba way codsan jireen oo oran jireen doorashaan diyaar u nahay oo rabnaa xisbiga kulmiye iyo xukuumadda muxuu ahaa aan diyaar u ahayn in doorasho dhacdo laakiin waxaan qabaa iyaga ama maanta diyaar u ahayn in doorasho dhacdo muxuu ahaa talaabo kasta oo ay qaadaan iyaga ka hor imanaya oo ciriyaaminaya marka waxaan u baaqi lahaa inay muxuu ahaa
labadoodii xubnood ay dib u soo celiyaan komishanka doorashooyinkana ay golaha muxuu ahayn ansixiyaan madaxweynaha loo gudbiyo si ay doorashada u dhacdo xubnood ay ka biyo diidan yihiin xisbiyada mucaaradkuna waxaan u arkaa dee waa laba xubnood oo reer somaliland oo muxuu ahaayeen inay muxuu ahaayeen inay komishanada qabtaanna dee wax u diidayaan ma jiraan baan u qabaa waana dib u dhacay xisbiyada mucaaradku ay ku doonayaan inay doorashadu dib u dhacdo mar kastaba muxuu ahaayeen khilaaf iyo waxaan jirin bay keenaan xisbiyada mucaaradku waxaan u baaqi lahaa inay doorashada diyaar u noqdaan oo ay komishankana taageeraan labadoodii xubnood ee dib u soo celiyaan baan idin salaamayaa TV-ga Saab oo mar walba heelan bulshada iyo rayigooda inay maxaan ku dhahay iyo waxa khaldan iyo inuu wax saxo mar walba u taagan waxaad wax iga weydiisay komishankii doorashooyinka komishanka doorashooyinka niyo raay ahaan komishankii hore mandatekoodu wuu dhacay waxaana isla qaateen saddexda xisbi qaran in la soo dhiso komishan cusub dabadeetana komishankii cusubaa halkii labada xisbi markay soo xuleen madaxweynaha halkii laga sugayey xubno cusub wuxuu soo celiyey xubno ku jiray komishankii hore arrinkaasna waxaad moodaa inay dee weli ay xaajadu halkii hore uun taagan tahay madaxweynuhu inaanu go'aankii markii hore u qaatay xisbiyada mucaaradka ay kala saxeexdeen aanu haba yaraatee wax maxaan ku dhahay uu ka hirgeliyey aana jirin muuse bixi waxaan leeyahay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somaliland haddii aad laba xubnood oo komishankii hore soo magacowday waxa weeyaan dee komishankii hore markaa maxaad dee aad maxaan ku dhahay isaga dayn weyday inay joogaan marka waxaan leeyahay halkaas aad waxaan u taageerayaa xisbiga wadani runtii oo ka biyo diiday markii labada xubnood ee dambe uu soo magacaabay madaxweynuhu inuu hakiyo taana waan ku boorinayaa xisbiga u cidna waxaan u soo jeedin lahaa inay joojiyaan iyana xubintooda ay hakiyaan si markaa doorasho fiican ay noogu dhacdo komishan cusub in loo soo xulo markaana aynu gudagallo maxaan ku dhahay doorashooyinkii dalka laakiin iminka waxa weeyaan wax halkaa maxaan ku dhahay maadaama markii hore lagu eedeeyey komishankii hore iyo maxaan ku dhahay maxaan ku dhahay dhinac iyo lex jeclaysi inay maxaan ku dhahay ay maanta lagu eedeeyey markii hore lagu eedeeyo ay doorashooyinku maxaan ku dhahay labada xisbi ka biyo diideen waxa weeyaan madaxweynaha waxaan leeyahay ku adkayso go'aankaagii hore laakiin ma aha maxaan ku dhahay waxaan rabnaa doorasho cusub inay noo dhacdo dal curdina baynu nahay dal soo koreeyay baynu nahay beesha caalamku wayna eegaysaa mar walba maxaan ku dhahay waxa lagu kala kacayay maxaan ku dhahay komishankii hore iyo sidii loo bedel lahaa markii mandatekoodii dhammaadayna inuu madaxweynuhu soo celiyo maxaan ku dhahay komishankii cusbaa dee lagama filayna komishan cusub baa laga filayay iyo xubno cusub marka waxaan leeyahay madaxweynuhu halkaa wuu wallaahi dee wuu halkaa waa gaab baan leeyahay saaran madaxweynaha qaranka marka waxaan oran lahaa madaxweyne halkaa dee halkaa ka hubsamaan oran lahaa xisbiga u cidna waxaan leeyahay waa niyow sidaa xisbiga wadani u hakiyey xubintiisii idinkuna u hakiya si komishan cusub aynu u helo horreyn haddaan ku bilaabo soo magacaabistan uu soo magacaabay madaxweynuhu labada xubnood markaan kala qaado xubini waa xubin horuu sii shaqaynayso waxay ka tirsan tahay inantu komishankan madaxweynaadkoodu hadda dhammaaday marka sabab loo soo celiyo haddana dib uu madaxweynuhu soo magacaabo taas waxaan u arkaa inay sharci darro tahay in dib loos awalba iyagaa lagu muransanaa la isku haystay buuq baa ka taagnaa haddana komishankii madaxweynaadkiisu dhammaaday oo in qaar la soo reebo dib loo magacaabo anigu waxaan u arkaa inay sharci darro tahay waa khalad ta kale ina riyaraa isna wuxuu ahaa campaign-dariskii ugu waaweynaa xisbiga kulmiye ee madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland u ololeynayay aynu arkaynay shaashadaha ka daawanayna isagoo xisbiga u ololeynaya marka madaxweynuhu ina riyaraacna waa sharci darro marka gebi ahaan labada xubnood waxaan u arkaa anigu inay yihiin laba xubnood oo sharci darro ah teedan kale haddaan eego xisbiyada mucaaradka ay ka biyo diidaan gebi ahaanba waa sax waa ku saxsan yihiin xisbiyada mucaaradka inay wax diidaan waxna yeelaan wixii khiyaamo iyo assassination ku jiro inay iska eegaan iskana gartaan waa sharci waa wax loo baahan yahay inay magaranaysahay ay wixii aan ka marayn ama lagu dagayo inay iska eegaan waa ku saxsan yihiin waa ku raacsanahay labada xisbi mucaarad bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u arkaa arrintan labada xisbiyada ay soo magacaabeen komishanka
labada xubnood ee noqon xubin commissionku xisbiga qaranku ee mucaaradka qaldan sidii loo soo magacaabo in loo socodsiiyo waana ku noqon oran qayla keenin waa sidii loo magacaabo in loo socodsiiyaan oo qaata rayga waxay dood ka qaban deegaana arrin siyaasad ahaan khaldan weeye aragtideedana waxaan anugu aaminsanahay qof maadaama xisbi hadduu ahaa ku milma xisbiyada waliba golo dhexe soo maray ma noqon karo xubin commissionka ah dhexdhexaadna uma noqon karo mana dee suurtageli karto inuu noqdo xubin ka mid a xubnaha commissionka marka xisbi ahaan waxaan anigu shakhsi ahaan waxaan u arkaa inuu arrintaasi khalad madaxweynuhu dib hagu noqdo waxaasina waa commissionkii hore aanu ka biyadiidna kiisii kale waa la mid waa kii uun kale xisbiyada mucaaradku waa ku saxsan yihiin dee ra'yiga ay soo jeediyeen waa inay la qaadacaanna waa xaq bay u leeyihiin waxaan waa wixii hore loo diidanaa in maanta dib loogu soo celiyo sharci ma aha commissionkii hore musuqmaasuqa lagu eedanayay baa haddana iminka xubno kulmiye ahbaa commissionkii loo magacaabay arrin macquula ma aha waa tahay daawadayaal intaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii aragtida dadweynaha oo aad kala socoteen telefishinka saab waxaan idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Sugulle tan iyo intaan dib ugu kulmi doono waxaan idinku wareejinayaa daadiyaha barnaamijka iyo magaalada Hargeysa Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad